dagaalka ayaa bilaamaya olol ayaa ka baxaya dagaalka ka socda King of Bots waa bandhiga tartanka caalamiga ah ee dagaalka robotka adduunka oo lagu qabtay magaalada Beijing sanadka 2018 tartankan ayaa lagu qabtay barxad xidhan oo leh muraayadan ay xabadu karaynin waxaad arkaysaa robotyo dagaalamaya ilaa midi ay ka dhimato 3 daqiiqadood gudahood innaga oo weli ku guda jirna bandhiga robotka waxa kale oo yaala robotyo loogu talagalay caruurta iyo da'yarta booqanaysa bandhigan robotyadan oo shakhsiyaadka caruurta la geliyey waxay barayaan caruurtan sida ay ula macaamili karaan shaqaalaha mustaqbalka ka shaqeyn doona dukaamada shaqaalaha caawiya macallimiinta iyo shaqaalaha ka shaqeeya guryaha iyada oo la eegayo warshadaha soo saaray shirkadda Kalashnikov waxay sanadkan soo saareen robot laakiin ma aha wax qof kasta filayo Igorek waxa Moscow ku soo bandhigay shirkaddii samaysay qoriga AK47 laakiin imika robotkan 4 mitir ah ma shaqaynayso tan oo keentay in lagu dacaayadeeyo baraha ay bulshadu ku kulanto ee social media dalka Colombia dawladdu waxa ay bilowday inay isticmaasho diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay uga ilaaliso beeraha lagu beero xashiishada diyaaradahan qalab casri ah ayaa ku rakiban oo aan wax dhibaato ah u keenaynin dalagga kale dadka diidanaysa waxa ay sheegeen in loo baahan yahay siyaasad lagu xalliyo dhibaatada ee aan loo baahnayn technology